ugu horeyn waxaan u tacsiyeynaynaa dadkii muslimiinta ahaa ee maalintii shalay oo jimco ahayd lagu xasuuqay waddanka New Zealand. dadkaas walaalaheen ahaa oo iyagoo masjidkoodii ku jira halkaasna ku cibaadaysanaya ay niman saliibiyiin ah albaabada ka soo istaageen, halkaasna ay dad 100 kor u dhaafaya shuhado iyo dhaawac ku noqdeen. waxaan leenahay allahuma ajirna fi musiibatina wakhlufna khayran minha. waxaan la xanuunsanaynaa qoysaskii ay dadkaas muslimiinta ahaa ee dhibaatadu soo gaartay ka dhasheen. waxaan leenahay intii halkaas ku shahiiday allah subxaanahu wa tacaala ha ka aqbala shahaadadoodii, intii dhaawacantayna allah subxaanahu wa tacaala ha ugu boogadhayo. qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam mathalu lmu'miniina fi tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaadufihim mathalu ljasad ida ishtakaa minhu cudwun tadaaca lahu saa'ira aljasadi bisahri walxuma. fariinta labaad ee siralaha in la xasuusiyo oo wax laga yidhaahda way u baahan tahay. waxaa arkay dadkii ka tacsiyeynayay waxaa ka mid ahaa afhayeenka ururka shabaab cali dheere oo dadkii inay ka xun yihiin iyo tacsiye dirayay. runtii waa la yaabo, waa isweydiiyeyo waxaan hadday dadku muslim yihiin iyagaabaa muslimkii na ka dhigaya soomaalida ahaa ee maxay dhahay tacsiday tirayaan. shacabkii masaakiinta ahaa Makal Mukarrama u dambeysay soo dhowr iyo 30 maanay ku dilin inta dhaawaca marka laga soo tago. Shaamow soo 100 kuma dhimanin, tiyaatarka dadkan tumeeyo ku dhow soo kuma dhimanin. dadkan Soomaalida muslim ma aha miya ee jirkoodu gubanayo, ee guryaha lagu duminayo, oo hantidoodii la baabi'inayo, dad la laayay iyo inta dhaawaca. haddii la muslimiinta halkaa 50 baa kaga dhimatay sanadkan intuu bilowday ama sanadkan iyo sanadkii hore 100 bay iyagu muslimkii Soomaalida ka dileen. kuwan muslim dhiig le ma aha miya? kuwan muslimka loo barooranayo in la ilaaliyo dhiigoodu yahay kamid ma aha miya? mise kan New Zealand ee fogna waa loo tacsiyeen, ka dariska le ee Soomaalida ana waa la baabi'in. maxay u kala duwan tahay? dadka muslimka ah haddaad magac Soomaaliya muslim ku baabi'isiyo haddaad magac gaal ku baabi'iso soo dilkii iyo baabi'intii un maaha. haddii laga hadlayo masaajid, yaa masaajid dadka ku leyn jira oo qarxin jiray weliba jumca. Sheekh Cabdiraxmaan Gacme yaa masaajid salaad casar jumca isagoo rukuucsan dilay. isla jumca dhaweyto boosaaso masaajid bartankii yaa ku dilay nin ugaas. dadka yaa masaajidka markuu galaya ka baxaya laaya iyadoo jumcooyin la tukanaya xamar masaajid kamid yaa qarxiyey. iyaga ururkooda ma ahayn. hadday daacad ka tahay oo diin iyo ilaahay dartii ka tahay dad muslimi iyo dhiigoodii inuu qaali yahay, maxay iyagu masaajidii iyo irdahoodii ugu laynayaan? maxay masaajidda jumcooyinka u qarxinayaan? maxay goobahoodii ganacsada iyo suuqyadoodii ugu baabi'inaya u halaagayaan? mase mudan tahay warkaas oo kaleeto in tacsi diin iyo daacadnimo ah loo qaato? waxaan dhiraa dad Soomaaliyeed iyo ururka iyo inta lamidka atoona inay hadda dhacdooyinkan ka tacsiyeeyaan, gaar ahaan ururadan sidan oo kaleeta ka tacsiyeeyaan. waxaan filayaa tacsi beena wey. adugu markaad intaad ka tacsiyeynayso 100 ka disho muslina oo masaakiin makhaayad iska fadhiya, kuwa suuq iska fadhiya, kuwa gaadiid iyo gawaari iska saara, kuwa jidad iska maraya, marka adigu ma ka dhigto haddana ku faanto oo u haysata janno inaad ku galayso, kii kala laaya maxaa kaa galay adiga? adba waad laynaysaa intiisa ka baaraada u geysanayay. waxaan isleeyahay inay dib u xisaabtamaan bay u baahan tahay, inay ka dhaxday run ka tahay inay muslim dhiiggii daatay ka xun yihiin, kanay maalin walba qubayaan inay joojiyaan. ilaan dadkii waa dhammeeyeen, qaraxyadii bayna ku dhammaadeen. waxaa laga yaabaa qof iyo 2 dawladaan u socon oo dagaal naga dhexeeyo, dee 2 iyo 5 haddaad u socotay 200 ee kale maxaa u dishay? waxaa uga jeedaa fariinta inaan iraahdo haddii ay ka tahay muslim dhiiggii inay ka danqanayaan oo dad muslima oo la dilay oo dulmi lagu laayay ka xumaanayaan, dee xumaantu iyo ka danqashadu kow waxay ka bilaabataa intaadan cid kale uga gurmanin adiga dhibkaaga in laga nabad galo. almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi inay noqdaan bay u baahan yihiin. ilahi subxana wa taala waxaan ka baryayaa mar kale dadka muslimiinta ee meesha dulmiga loogu laayay inuu shahaada uga dhigo, dadkoodiina sabri iyo iimaan ka siiyo, iyagana ilaahi subxaanahu wa tacaala
wax ka khayr roon ugu bedelo intaasaan kuubaya kelimadeyda. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.